xisbiga midnimada iyo horumarka Soomaaliland isla markaana talada dalka gacanta ku haya ee kulmiye oo ay maanta ku beegneed maalintiisii ugu dambeysay ee ololaha kaambeynka doorashada aqalka madaxtooyada ee la filayo dhawaan inay dalka ka qabsoonto ayaa waxay kumanaan kamid ah taageerayaasha xisbigaasi soo bandhigeen taageerada mug iyo miisaanka leh ee ay hayaan xisbigaasi waxaana isu soo baxyo ka dhigeen faqaarayaasha waaweyn ee magaalada Ceelafweyn ugu dambeyntiina waxay isugu soo biyashubteen khayriyada ku taala bartamaha magaalada Ceelafweyn ee galbeedka gobolkaasi Sanaag ugu horreyn waxa goobtaasi ka hadlay mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ee degmada Ceelafweyn cuqaal taageerayaal aad u fara badan oo carabka dhamaantood ku wada dhuftay inay u codeynayaan maalinta doorashada xisbiga kulmiye waxayna yiraahdeen kuushii yar bay nooga hadhay waxaynu u diyaar garoobnaa wixii maanta ka dambeeya qof kasta kaarkiisa ugu ridi lahaa codkiisa mudana Muuse Biixi Cabdi gacantana ku haysan lahaa kaararkiina ayaa la idinka qiyaanaysan imika waxa la sheegaya qaarku dadka ku kaambeyn gareynaya markii abaaru dhaceen waxaanu idin keenay raashimo markii abaaru dhaceen rufciya bariis iyo daqiiqa baanu idin siinay war codkiinu wax rufc daqiiqa iyo rufc bariis lagu kaambeyn gareeyo uu ka qiimo badan yahay kulmiyaha guulaysto in badan baynu ordaynay in badan baynu soo taagnay waxaynu sugaynay maalinta waxaanu kula dardaarmayaa aynu ugu hiilino maalinta codkeenna Muuse Biixi Cabdi inaan soo saaro taageerayaasha kulmiyada waxaan leeyahay dee waxba inoo ma hanin haddaad in badan lahaydeen xildhibaanadii male waana kale waa guul nabadgelyada reer Ceelafweynow taageerayaasha kulmiye waa inaynu inagu dul qaadannaa waa laydin shuqaynayaa haddii hadal xumaa aragtaan ama shuqa aragto nabadgelyada inoo ka fulkiya innana haddaynu nahay taageerayaasha xisbiga kulmiye sidaasaynu kula shaqaynaynaa kuna taageeraynaa kuna garab taagannahay kulmiye ha noolaado kulmiye ha guulaysto Soomaaliland ha noolaato madaxweyne Axmed Maxamed Siilaayo ha noolaado Muuse Biixi ha guulaysto idinkoo noolaada hadda tiin taageerayaasha degmada Ceelafweyn xisbiga kulmiye gabagabadina waxa munaasabadaas ka hadlay mas'uuliyiinta kaambeeyga xisbiga kulmiye ee degmada Ceelafweyn oo uga mahadnaqay taageerayaasha xisbiga kulmiye taageerada laxaadka leh ee ay muujiyeen maanta waxayna yiraahdeen waxa jira dad iyagu doonayay oo markay cod ka waayeen Ceelafweyn doonayay in codka kulmiye iyo codka Ceelafweyn khasaaro oo kaararka doonayay in dadka masaakiinta ka iibsadaan waynu cambaarayna kuwana waa iska jiraysaan xamaasadiinni iyo ololihiinni waxaa ku muujiseen si wacdara ah tiifiyada maxalliga ee la daawado oo Ceelafweyn waxay noqotay meelaha ugu xamaasadda badan waxaa magaciina kor u qaadeen oo gaarsiin meel aan la qiyaasi karaynin waxaan runtii halkan uga ducaynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii muddaxileedkiisii ay 3 casho maanta isniinta ay ugu dambayso oo maalinta madaxweynaha cusub oo aynu filayno inuu yahay madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi anigoo ku hadlaya magaca dida kaambeynka waligiina yaalihin idin ilaawimayno kulmiyana idin ilaawi maayo waxa muujiseen xoogiini waxa muujiseen taageeradiini waxa muujiseen muruqin waxaanu leenahay aad iyo aad baa u mahadsan Axmed Mursal Askar TV caalamiga Universal Ceelafweyn